qisadii cali iyo cilmi taariikhdu waa 2040 shacabka Soomaalida loo yaqaan waxay ka mid yihiin ummadaha dunida ugu ilbaxsan ugu horumarka badan uguna dhaqanka iyo soo dhaweynta fiican waxay ummado badan la dheerihiin in ay yihiin dad boqolkiiba boqol muslim ah oo dastuurkooda iyo nidaamkoodu uu boqolkiiba boqol islaamka ku dhisan yahay meesha la joogaa waa degmo ka tirsan magaalo madaxda dalka ee Muqdisho oo lagu magacaabo Shalambood hadda ka hor waxay caasimadda Muqdisho u jiri jirtay dhowr iyo 80 kilomitir oo waxay waliba ka tirsanayd gobol kale oo lagu magacaabo gobolka Shabeellada Hoose waxa masaajid ka soo wada baxay cali iyo cilmi oo salaad casr kadib iskuulka masjidka ku soo qaatay casharo isugu jiray tafsiir xadiid xisaab iyo taariikh علي ayaa isaga oo la yaaban wixii macalinku ka sheekeeyay markuu casharka taariikhda ah dhigayay ee ku saabsanaa in caasimaddu ay degmada Shalambood waa u jiri jirtay dhowr iyo 80 kilomitir laakiin fidida iyo horumarka magaaladu uu dhawaan soo gaaray degmadan Shalambood wax ka weydiiyay bal inuu cilmi horay u maqlay iyo in kale cilmi oo dhowr sano ka weynaa cali ayaa ku yiri waan maqlay waa barigii shaydaan raaca ee Soomaalidu ay ku sigatay in ay baaba'aan علي حاتري شيطان راعة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويأجوج يا مأجوج باكسو دولي وشيطان كإني راعان كخصمي علمي وحي معلمك الشيري وحد شيري سانا قدراني وحي لشي maya quraanka waa taqaan oo qolyahaasi darbigii dulqarnayn ku xanibay bay wali ku xaniban yihiin shaydaan baa ka guuleystay markaasuu u qurxiyay inay iyagu gacmahooda sidii yuhuudii Khaybar dalkooda ku burburiyaan inaad iska daysaa ku roon hadii kale waxaan ka baqayaa inaad mowti 2015 dhimatay aad habaarto ama aad wax ka sheegto soo ogidin diinteena bartay in ayna dadkii dhintay isugu faanin ilaa wixii ay shaqaysteen ayay gaareen oo nolol barzakh ah ayay ku jiraan magacooduna amwaat ayay isu bedelay maya kuna faani maayo waxna ka sheegi maayo ee waxaan u rabaa inaan wixii aabbayaasheen iyo awowayaasheen ku khaldameen u ogaano si aan isaga saxno oo aynaan inaguna ugu dhicin علي وفعلا لهيدا هدي أبايا شاسي مدة 25 سنة هاي أي خلط كاس إحدى ما نلاقيه إنتاس أد حد ترفع لهاي وقتها أي قبيلة دقي أو يسوق فانك سكنوميين بو إنتاس غيران لها واجاس مقالو كستا وحا أهري إير أو إسكو أو كسر وذا جدا وإسو خيستا إنا إيغو هو أغو وفي عيه هو أغو مضن إن عسايه هو إن أي تليان له إن إيغو يه هو إن إيغا كليان لدقيست له إن إيغا أونيه هذا هو قرى كستا يمغالا كستا أغو ودين كان أن أخرسنا مكدب بي سومالي سوغار إسعاد جمعا عربي فاهمين بي أهاييني إننا أباياشين مردو إمادين وسومالي دي هوري بابئين maya ma baabi'in innaguna ilmahoodii baynu nahay meel kale kama soo degin carabigana sida aynu u fahmayno ayay u fahmayeen walow marmar uu daciifi jiray bal fiiri meesha xagga qofka albaabka garaacaya waa cilmigii reer khudaareed adna markaad sidoo kale igu soo garaacdo albaabka aad leedahay war waa caligii reer mirood dariskaaguna uu sidoo kale ku leeyahay waa siyaadkii reer kalluun ee ay magacaaga iyo qabiilkaagu isku mid ka yihiin barigaas qabiilka waa la qarsan jiray maxaa yeelay haddii la ogaado inaan reer khudaareed ahay ama aad reer mirood tahay ama uu reer kalluun yahay inta badan bulshadu way tunacaysay ilan iyagu reerkaas maahay qaarna waxaaba laga yaabi jiray inay ku dili lahaayeen lagu dili lahaa ومن نفعل حرمي فإن غير هذا الكبشي ما بحالي سنجري ديجيس وأنو ما هي عن كل ديه محمد دليا وكان دليا سوى أوجا إنه وقف مسلم وأنا إساق وقف وحكى قلين وقردها كدليا عليو waxaad fahmi kartaa ma allihii aan noolayn barigaas ayaa mahad iskale waxa kaaga daran qofka ku dilaya wuxuu ku marmarsoon jiray in waa hore uu gacan ku dhigle reerkiina ka dhashay uu qof ka dilay ama xoolo ka dhacay oo uu isagu tii aarsanayo awoowaha labaatanaad ayaa idinka dhaxeeya marka waa in aad dambigiisii xambaarataa dadku waagaas isma weydiin jirin su'aalahaas maxaa yeelay shaydaanka ayay raaceen wadagahooda iyo qalbigoodaba ka daboolay in ay maqlaan ama ku fakaraan waxa aad ka hadlayso sidaasaana zamankii shaydaan raaca loogu bixiyey dadku qalfoof bay noqon jireen markii roobku ka daaho ama abaar yari soo gaarto adduunkana waxay ka ahaayeen
kuwa sawiradooda loo adeegsado baryootanka ummadahana laga yaqyaqsado ama tusaale loo soo qaato markii wax xun iyo meel aan nololi ka jirin laga hadlayo. in badan oo naftooda la carartay waxay ku baabi'i jireen badaha intooda ka badbaadaana waddamadana kale ayaa foogaa nolol cabsiin jiray. qaarkoodii danahaas laga gaaray dhashii ka farcantay weeye dadka tirada yar ee soomaalida u eg laakiin gaalada ah ee aad buugta ka akhrido inay yurub iyo ameerika qaaradaha la yidhaahdo ku nool yihiin. cilmiyow sidee indhala-aanta heerkaas gaartay ee shaydaanku ku guulaystay in amarkiisa la raaco looga baxay oo aan soomaaliyada aan naqaan ku gaarnay? waxay soo martay heerar kala duwanaa kalase dambeeyey iyagoo markii kooxi wax hagaajiya istirahdaba dadkii uu shayddaanku ka hor keenayo oo ay wax sidaas ihiba hirgeli kari la'yihiin. laakiin ay dadkii soo kartay nolol xumada iyo dhiigga iska socdaa ayaa alla wuxuu waafajiyey inay olole diraaso iyo fahan cilladaha dhabta ah lagu baaray ka horreeyeen ay qaadaan qayb culummada ka mid ah oo garabsanayay soomaalidii soo martay sida dalalka kale ee ay noloshu ka jirto ee kala duwan looga nool yahay. qaarkood dadka ku noole ay kala duwan yihiin, kala diin yihiin, waxgarad iyo aqoon-yahan hore oo waayihii uu waddanku fiicnaa soo joogay, hooyooyin uu dulmigu inta badan saamayn jiray, iyo saxaafad xoog lahayd oo u badnayd tv-yo oo dhammaantood waxay isku dhaarsadeen in ay iyagu iska sifeeyaan cudurkaas ummaddana ay si siman ugala dagaalamaan cudurkaas. halkaas ayay ka bilaabatay. maalintaas wixii ka dambeeyey ceeb ayay noqotay qof Soomaali ah oo qof Soomaali oo kale qabiil ku caayaya, ku xaqiraya ama wax uga sheegaya. cudurkaasi soo shaydaanka ma ahayn? maya, cudurku wuxuu ahaa qabyaaladii aynu ka soo wada hadalnay, shaydaankana u ahayd hubka uu wax ku gumaado. markiise ay isla garteen cudurkii, daawadiina ay culummadii u qortay, dhammaantoodna ay garab istaageen oo nolol la isaga tallaalayo cudurkaas oo dhul iyo cir iyo bad iyo barriba leh, ayaa ku khasbay in ay dadweynihiina arkaan, maqlaan oo raacaan hanuunka. markaas ayay bilaabatay in ay si dhaqso leh u soo noqdaan dadkii ku dhibbanaa adduunyada daafaheeda. waxay la soo noqdeen khibrado kala duwan iyagoo iska tuuray wixii xumaa ee ay ka soo arkeen waddamada oo keliya ka soo qaatay wixii fiicnaa. baddii iyo dhulkii ayay maalgashadeen, sidaasayna ku noqotay meesha adduunka ugu horumarka fiican ee aynu maanta joogno. dowladdii jirtay waagaas waxay gacmo furan iyaduna ku soo dhowaysay wax kasta oo fiican, waxayna la dagaalantay wax kasta oo xun, waxayna hirgelisay barnaamijkii ololaha ee lagu soo heshiiyey. saaxiib, alla ha kaa ajarsiiyo taariikh mugdi ah oo awoowayaashaan soo mareen ayaad wax iga bartay. anna waan ka sii digayaa si aan loogu noqon. waayahay, assalaamu calaykum. ma kalahay fadlan